Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaada kanaalka Dr. Jane. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa xanuunada keena nafaqabatinka xilliga hurdada ee loo yaqaano sleep apnea disorders. Maxay yihiin, sida ay u dhacaan, maxaa keena iyo sidoo kale xalka iyo dawooyinkooda. Haddaba waa maxay sleep apnea disorders? Sleep apnea disorders waa mid ka mid ah xanuunada ku dhaca hurdada ee la isku yiraahdo sleep disorders. Badanaana qofka geliya oo ku sababa khalkhal ku yimaada habdhiska iyo hanaanka neefsashada iyo in qofku khuuriyo, taas oo keenta apnea ama in si ku meel gaar ah qofku neefta ugu dhagto, hadhowna ugu dambeyn sababi karta xaalado caafimaad oo khatar gelin kara qofka naftiisa. Haddaba waxaa loo kala qaybiyaa 3 nooc oo kala duwan: obstructive sleep apnea, central sleep apnea, iyo in labadooduba israacaan. Obstructive sleep apnea oo loo yaqaano sidoo kale hypoapnea syndrome waa in qaybta sare ee hawo-mareenka ah ay wax xidhaan ama ay xidhmaan ilaa muddo 10 second ilaa iyo wixii ka badana. Inta badanna waa ay soo noqnoqotaa. Waxay ku timaadaa 5 nooc ama 5 xaaladood midkood. oo kow, haddii qaybta sare ee hawo-mareenku wax xidhaan. Sidoo kale isbedelada ku dhaca hormoonada xilliga habeenkii oo keena in murqaha qoorta xaggeeda dambe ku yaallay ay dabcaan, kuwaas oo badan ka caawiya kolka qofku dhabaxaad u jiifo si aan hilib dalquhu uusan u xidhin hawo-mareenka. Sidoo kale waxaa lagu arkaa dadka aadka u hilboon ama obese la yiraahdo. Waxaa qodobka afraad ah in qofka sigaar cabka badan isna uu keeni karo hadhow obstructive sleep apnea ama lagu arki karaba. Sidoo kale ugu dambeyn waxaa jirta dad u dhaxla ama dhaxal u haysta oo hidaysta. Nooca labaad ee haddaba loo yaqaano central sleep apnea. Central sleep apnea waa marka ay ciladu ka jirto habdhiska dareen wadayaasha jirka ee loo yaqaano central nervous system-ka, taas oo ku timaada 4 xaaladood midkood. Marka ay maskaxdu si fiican u amri weydo murqaha maamulaha hawo-mareenka. Midda labaad, taas waxay keenaysaa in hawadii murqihii kontarooli jiray habdhiska neefsashada ay aad u shaqayn waayaan. Qodobka labaad oo ah qofku xanuunada sidoo kale qofka qaba xanuunada murqaha sida muscular dystrophy-ska. Sidoo kale waxaa lagu arki karaa ama ay ku iman kartaa haddii qofku uu qabo xanuunada wadnaha iyo haddii dadku isticmaalaan ama qofku uu isticmaalo dawooyinka xanuun baabi'iyeyaasha. Calaamadaha lagu garto xanuunka waxaa ka mid ah in qofku aad u khuuriyo inta uu hurdo, weliba khuuro aad u dheer oo loo yaqaano loud snoring. In naqasku qabto isagoo naqasku hayana uu la soo kaco oo loo yaqaano nocturnal dyspnea. Sidoo kalena hurdada dhexdeeda inuu qofku ku saxdo, taasoo iyadana keeni karta choking. Waxaa iyadana lagu arki karaa qofka madax xanuun xilliga subaxdiya ama morning headache, iyo in qofku maalintii luloodo daily sleepiness ay ku timaado qofka, taasoo hadhow keeni karta traffic accidents halis gelin kara qofka, iyo sidoo kale daal fara badan ama fatigue. Haddaba waa maxay xalka ugu habboon ee lagu daweyn karo? Inta aan qofku dawooyinka isku dayin, waxaa habboon lifestyle modifications inuu sameeyo, oo macnaheedu tahay in qofku habdhaqanka iyo qaab nololeedkiisa uu wax ka bedelo, waayo iyada ka ammaansan dawooyinka. Haddaba waxaan u kala qaadi doonaa dawooyinka qaar medical ah iyo qaar non-medical ah. Non-medicalka haddii aynu ku horreyno, kow, haddii qofku uu hilboon yahay waa inuu hilibka iska rido. Sidoo kale haddii qofku sigaar cabis badan yahay waa inuu sigaar cabistaas joojiyo. Haddii qofku uu qof fadhiida yahay waa inuu jimicsi fara badan uu sameeyo, adleast jirkiisa uu dhaqaajiyo. Sidoo kalena waa in qofku u seexdo marka uu seexanayo dhinaca midig, weliba badanka waxaa lagu taliya dhinaca midig ama beerka. Sidoo kaleeto qofku waxa uu isticmaali karaa xilliga hurdada birkimooyin dhaadheer si uu usoo dallaco. Haddaba medical markaanu ka hadlayno, medical waxaa lagu daweyn karaa qofka mashiinna la yiraahdo CPAP. CPAP oo macnaheedu yahay continuous positive airway pressure, oo maaska sanka lagu xidho, kaasoo madaxa qofka kor u soo dallaca kana ilaaliya hilib dalqeedku inuu ku awdmo hawo-mareenka. Sidoo kale waxaa la siin karaa oo lagu xidhi karaa qofka non-invasive ventilationska sida face mask ventilation ama nasal mask ventilationska. Sidoo kale qofku waxaa la siin karaa melatonin oo ah hormoonka qaabilsan hurdada oo uu qofku qaato externally. Waxaa kale oo qofka la siin karaa oo iyadana caawin kara haddii intaasoo dhan la waayo benzodiazepinska. Si aad uga mid noqoto asxaabta ku xidhan channelka, fadlan rukumo oo subscribe gambalaalkana furo, like-tana raaci haddii aad ka hesho muuqaaladeena, lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.